البنات وأخلاق الوليد تقاس حقا بأخلاق النساء الوالدات وهل يرجى لأطفال كمال إذا نشأوا بحزن الجاهلات أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات وقلنا في لسان القيد قبلا أوانس كان بات شاعرات وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائله المشكلات وعلمها النبي أجل علم فكانت من أجل العالمات فباد اليوم ذر لو تفتنا إلى أسلافنا بعد التفات فيها الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحزن الأمهات وحزن الأم مدرسة تسامى لتربية البنين أو البنات وأخلاق الوليد تقاس حقا بأخلاق النساء الوالدات وهل يرجى لأطفال كمال إذا نشأوا بحزن الجاهلات أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات وقلنا في لسان القيد قبلا أوانس كان بات شاعرات وكانت halkan waxaan ka salaamayaa culimada madaxda uu hogaaminayo mudanaheena aadan barre ducaale macallimiinta ardayda iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa wax yar oo kooban inaan halkan ka sheego base yar oo qabsatay iyo waxbarashadeydii kow wax kasoo bilaabay meeshan marka aan imaaday macadkan iga qabsatay iyo qofka wax yaqaana iyo qofka aan wax aqoonin fadliga u dhaxeeya aayaadka ilaahayna waata uu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun rasuul allah ismayhi qofka wax bartay iyo qofka aan wax baranin ma sinna saasaa ilaahay aayaadkiisa noogu sheegay ilaahay baa mahadle macadkan waxaan imaaday 2016 bishii 8 maalinkii la furay ayaan imaaday qofka aan cilmigana baranin wuxuu ku jiraa mugdi qofka wax bartay wuxuu ku jiraa iftiin maalinkaan imaaday macadkan imtixaan ayaa layga qaaday 3 shay ayaana laygu imtixaamay 3 shay inaan akriyo waan akrin waaye waxaa layidhahay haddana qor waan qori waaye kadib maclimadaydii waraaq ayay igu qortay tira ahaan 6 shay ayadu 6 shay ay ahayd laakiin anigu 6 kitaab bay ahayd kadib markaan kasoo tegay waxaan ismooday in galaas sare la geeyey qur-aankana soo baranhayay qur-aankana kitaabkii qalanqaariban ka baranhayay markaan guriga imaaday wiil yar oo aan dhalay oo madrasada salaam dhigta oo galaaska 12aad markaa asaga joogay ayaan waraaqay diiday waxaana dhahay waraaqdan qaad kutubtan iisoo dad oo 40,000 ee shilin qaad wiilkii waraaqdii ayuu akhriyay wuxuu yidhi hooyo kuguma qorno kutub intaa la gado ee 500 keen nooligayga iyo waxa lagu soo diray way ku filayeen wiilkii waan ka dhagaaday waxaan dhahay waraqaaqo hadday kugu yaraa weliba erdeesar kugu soo dari kadib waxaa dhacday wiilkii inuu ii keenay alaabtii markaan furayna waxaa iigu jirtay hal kitaab oo 300 la gado oo farbar ah iyo 2 buug oo wax lagu qoro hal qalin iyo hal beensala iyo hal raabaa iyo hal jooga 6 shay ee 6 kitaab mooday sida ay ahayd lacag 500 ayaan ku soo gaday 3,500 lagu soo celiyay gabar walaashay
ودرس كيجنا خير الله سيو وسعدية حسن له ومركه هرب معك كان هاي فضل جهة الحين أيام لا تشوفون في العلية حيث تري فرط قرآن ويكتب بيسي صوب فرط وهي معنا سيدي أيام معك وإمامي فرتنا عن بالله الحمد لله هذا فرتي وصوبرتي أنا يا معلم دبر اسمه الفريسان كتابي أنا كلي أخذته هذا أنا وحنا هاي جلس كسبحات أيام هذا سنة الأولى وحنا قاتا سيرة فقه توحيد حديث عربي يا قرآن أنت ما اللي يترجمه ولا إيه يا قرآن قرآن سؤال اللي وجينا وكجواله واللي هو حنكجرا أرضه هراء الباسطة الحمد لله إلهي لا مهد قفك عن علم جبراني قفك عن علم جبرتي سلا أي أكل دويه والمبدي يفتين أكل الجيران وحنا مهد علم هيا عليه الرحمن كها وافجي إن معك إمامه أول روح موت جيري هو يعرف كلا إن أي وحدة بركرين ويقولوا أنكو أكتحي هيك رمى مولده ما يلاكين مركز استجابيا وقاري هو يوم بين وحبركة وعنوها العلم يا علي الرحمن كها إلاشا بكينا يوافجيه وحان كانوا نمها العلم يا قبل ولا شيء هي درس كينا هي سعدية حسن هي هو نسيبونها المسيئنا المرض يوم علمات دايدي مريرة هي فرحية الشيخ حسن هي طمان معلميتي وحي صوبرتي أيام أمها علمها يا السلام عليكم ورحمة الله